degmada Celifin oo gobolka Sanaag waxa maanta lagu dhaariyay golaha deegaanka cusub ee degmada Celifin oo ka kooban 12 xildhibaan waxayna iska dhex doorteen maayir iyo maayir ku xigeen cusub maayirka degmada Celifin loo doortay Maxamed Aadan Digaale halka maayir ku xigeenka degmada Celifin oo gobolka Sanaag loo doortay Maxamed Jaamac Liibaan Hindi waxaana ka soo qayb galay munaasabada dhaarinta iyo doorashada barasaabka gobolka Sanaag injineer Axmed Cusmaan Xasan taliyaha qaybta booliska gobolka Sanaag gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sanaag maamulka degmada Celifin waxgarad iyo marti sharaf kala aad u tiro badan ugu horreyn waxa halkaas ka hadlay maamulka gobolka Sanaag degmada Celifin iyagoo dhamaantood kula dardaarmay xubnahani cusub inay ka soo baxaan mas'uuliyadda ay qaadeen diinta islaam iyo dalkayga Soomaaliland dadkaygana aan ugu shaqeynayay si cadaalad daarta marxaata laga wadayahay wax fudud ma aha ree hebel ku dagaalan laguma dhaarinin ree hebel inaga celina laguma dhaarinin inaad daacad u tahay ummadaasi oo aad si sinaana ugu garsoorto horumarkeedana uga shaqeyso islaamnimadaada aad ku adkaato ay culayska idin saareen horta Ilaahay idin fudaydiyo daarta lama wada fahmo laakiin Ilaahay ha idin garansiyo ha idin fahansiyo markii lagu dhaarinay xisbi hebel laguma dhaarinin ogow ummadana lagu dhaariyo waxa isticmaalaysa waa magaca Celifin iyo inaad golihii deegaanka tood ka shaqeynayso nabadooda iyo horumarkooda oo ducaynayna labada mas'uul ee halkan lagu magacaabay dardaaranna waan siinaynaa annagoo dhammaanba wada dardaaraynaa xildhibaanada waxaan ku raday xubnaha golaha deegaanka Celifin horeyna u sheegnay uguna celinayna mar labaad iyo mar saddexaadba mas'uuliyadda saarantay inay maxaan ku dhahday ama saaran ay gutaan labada mas'uul ee hadda horteena lagu magacaabay waxaan doonaynaa inay si gaar ah bulshada ugu adeegaan haddaad xisbi ka soo baxday oo tiraahdo fikirkii xisbigeygii baan maxaan ku dhahay horumarinayaa ama fikirkii xisbigeygaan ku shaqeynayaa suuragal ma noqonayso waxa laga rabaa fikirka bulshadaada inaad ku shaqeyso fikirka maamulka inaad ku shaqeyso sidii bulshada loo horumarin lahaa inaad ku fikirto taasaa lagaaga baahan yahay waxaan leeyahay bulshada reer Celifin cuqaasha iyo waxgaradka iyo maxaan ku dhahay dhammaanba cidda la doortay waxa ma qaban karto haddaydan idinku la shaqeynin haddaan la garab istaagin oo hareeraha lala qaban waxba magacaabistu sheegi mayso waxaan doonaynaa si wada jira in loola shaqeeyo laga saaro reernimada laga saaro xisbinimada laga saaro loo shaqeeyo inaad tihiin reer Celifin oo walaalaa oo nabadda ka wada shaqeysanaya awalan waxaan u hambaliyeynayaa golaha deegaanka cusub ee maanta ammaanada ama xilka degmada Celifin loo dhaariyay gaar ahaan duqa magaalada iyo ku xigeenkiisa waxaan leeyahay hambaliyo xilka ummadda u qaadan ammaanada Ilaahay ha idin fududeeyo marka hore waxaan leeyahay bulshada degmada Celifin sidii ay u yaacayseen bacadka u tubseen farta u bixinaysan codka u siinaysan hebel yu dhicin kala shaqeeyo horumarka degmada iyo amniga iyo wanaaga waan u hambaliyeynayaa maayarka iyo maayarka xigeenka tartanka ku guuleystay waxaan kaloo hambaliyeynayaa mudanayaasha kale ee sagaalka ee la dhaariyay iyagana hawl weyn baad gasheen waa taad ballan qaadeen dadkuna idin sheegay insha Allah inaad dari lahay hawsha u dhalaalisaan bini'aadamku inta badan war bay sheegaan warka inta badan afkun buu noqdaa waa la waayaa hadhow waxaan idinku ducaynaynaa kuwa warkoodu rasmi noqdo oo dhaartoodu rasmi noqoto oo waxqabadkoodu rasmi noqdo inaad noqotaan idinku waxaa halkan fadhiya xildhibaanadii golaha deegaanka ee degmada Celifin ee soo baxay dhammaantood waa reer Celifin waxa weeyaan waxay u soo baxeen number 1 degmada Celifin inay wax ka dhigaan ummadda muddada dheer 5 sanadood dagaalka ku jirtay ee xaaladoodu ay adkaatay ee dhaqaalihii uu ka burburay kuwii soo qaadi lahaa jihaadkii yaraabay ka soo baxeen ka ay galayaan waa jihaadkii weyna waxaan leeyahay marka hore aad iyo aad baa u mahadsantihiin degmada waxa ku guuleystay
maxamed aadan digaale sidaasaa cod aqlabiyada ku hela maayir ku-xigeenkiina waxaa ku guulaystay maxamed jaamac liibaan hindi geestooda waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay maayirka cusub maxamed aadan digaal iyo weliba maayir ku-xigeenka cusub ee degmada Celifin maxamed jaamac liibaan hindi waayeel waxgarad iyo weliba xubnihii la tartamayay ee laga guulaystay iyagoo dhankooda hambalyeeyay waxaan idin codsanaynaa inaa noogu ducaysaan xilka naloo soo magacaabay maanta ee naloo soo igmaday inaa noogu ducaysaan ilaahay nagu asturo kuwii dadka daacad iyo cadaalad ugu shaqeeyana alla naga dhigo waxaan ugu horeyn diyaar u nahay inaanu ka shaqeyno nabadgelyada iyo isdhexgalka bulshada reer Celifweyn waxaan noqon doonaa kuwii degmadooda aan ka xoogsan ee u xoojiya waxaan noqon doonaa kuwa mutadawiciina oo dadkooda si hagar la oo aan qabiil lahayn oo aan qolo lahayn ugu shaqeeya uguna hagar baxa xilka loo dhiibtayna dadku uu noqdo mid uu simeeyay xildhibaanada cusub ee aan ka mid tahay ee 12 xildhibaan ah ee sida wanaagsan sharafta leh qiimaha leh calooshamada leh niyadsamada leh noogu doortay goobta tan waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin 5 iyo 6 baynu kala ahayn mid un bay raacdaa caloosii waxaan leenahay waa mahadsantihiin kii noo codeeyay iyo kaan noo codeynba waxaan maanta ballan qaad aan u nahay maayir ku-xigeenkii degmada baan u ahay waxaan ballan qaadaynaa inaan noo kala socnayn waxaan kaloo hambalyeynaya annagoo tartamaynay aniga iyo saaxiibkay maxamed aadan oo aqlabiyadii codka aanu isla miisaanku xaggaaga u janjeeraa xaqiisu u janjeersamay aad baan u hambalyeynaya anigu waxaan u tartamay gudoomiye ku-xigeen runtii sifaha ah in la tartamo sifahan ah in laga hal dheereeyo walaalkay maxamed baan la tartamayay runtii wuxuu iska kooban darteed midka yare dhulcda ayna dhex joogay sidii la dhuuda hadii uu xaqiisu u batay oo ugu hambalyeynaya waxaan leenahay labada inaan la doorto iyo inamada kale la shaqeynayaba waxaanu idin leenahay hadaan reer Celifweyn nahay waxaanu idin ka rabnaa in halkii ay taagneed hore uga sii dhaqaajisaan waa dardaaran taasaan idin ka rabnaa inaana soo gaarsiisaan degmooyinka leeyahay degmooyin cagaaran ayaanu idin ka rabnaa inaana soo gaarsiisaan waa maalin farxad inoo ah oo ay soo gabagabowday doorashadii isku sidkaneed ee labada gole halkan lagu dhaariyay lagu doortay gudoomiyihii iyo gudoomiye ku-xigeenkii degmada Celifweyn lagu doortay deegaanka waxaan kula dardaarmaynaa inay dadka u shaqeeyaan marka u horeysa maayarada cusub ee la doortay aniga oo hambalyeynaya waxaan u dardaarmayaa goobtanu waa goob weyn waa goob wax walba lagala kulmaa maanta wax wanaagsan baa kala kulanteen wanaagaa kala kulanteen horumariya waxaan kaloo hambalyeynayaa xildhibaanada cusub iyo maayirka cusub ee maxamed aadan digaale daba dhige iyo maxamed jaamac liibaan cumar waa ku-xigeenkiisa la soo doortay iyo 9kooda xildhibaanba waxaan leeyahay hambalyo iyo bogaadin iyo duca ayaan isugu daraya waa maxamed suuta telefishinka qaranka Soomaaliland Celifweyn